asxaabta soo dhawaada Lencom waxaan idin soo gudbin doonaa cashirkeeni labaad oo kamid ah casharradeeni CSS-ka habeenka dhawaan introduction bay soo qaadanay sidoo kale waxaan u qaybinay CSS-ka saddex qaybood: inline CSS, internal CSS iyo external CSS. internal CSS ayaynu soo aragnay oo soo tijaabinay haddii lahayd ma waxaan qaadan doonaa labadii party ee kale ama labadii tab ee kale ahaa inline CSS iyo external CSS inagoo internal CSS na wax ka arki doono marka isla socod haboon sidaan usoo furtid sublime textiga ama editorka isticmaalaysid haddaad notepadka computerka isticmaalaysid waa caadi in haddaad isticmaalaysid sublime textiga oo kale isna okay weeye bracketka haddaad isticmaalaysid kuwa kale ee jira haddaad isticmaalaysidna waa caadi marka ugu horeyso waxaad dahaysaa file new file baad dahaysaa kabacdina waad save garanaysaa intaad wax ku qorin save baad leedahay kabacdi meeshaad rabtid ayaad dhigan kartaa haddana halkaas ayaan anugu dhiganayaa dabeetana waxaan u bixinayaa inline tusaale inline css.html oo bixinaysa markasta pageka html ka horeynaya css-ka pageka waxaad page cusub ka samayn kartaa css-ka laakiin waa markuu external ka yahay laakiin internal iyo inline marka uu yahay css-kaagu waxaad ku dhex qoraysaa uun pageka html ka dhexdiisa ku qoraysaa laakiin hadduu external noqdo pageka html ka uu ka baxayaa oo page cusub uu noqonayaa kabacdina waxaad extensions waxaad ka dhigaysaa halka aad ka dhigtay .html waxaad ka dhigaysaa .css markaynu external ka samayn doono sameynayno ayaynu arki doonaa save aad dahaysaa kabacdi waxaad dahaysaa html okay inta hore necessary-ka tab baad qoraysaa tab aad dahaysaa marka intana dee uma baahna hadda inaan idiin sharxo title-ka waa meesha la geliyo ciwaanka browser-ka tusaale ahaan haddaan browser-kayga tago aan tuso title-ka waxaa la dhahaa halkan caasimada online calaamada oorta wararka maanta halkaas oo kale halkaa ayaa qoraal ka soo baxaya ayaa title-ka ku dhex qoran marka waxaan ku qorayaa matalanba Lencom okay inta markaan sameeyo burigan aan imaanaya kabacdi waxaan ku qorayaa ciwaan baan ku qorayaa h1 kabacdi waxaan leeyahay Lencom 252 kabacdi waxaan leeyahay Ctrl S waan save gareynaya markaan save gareeyo right click baan dhahayaa browse open in browse baan dhahay bal siduu u ekaado aynu aragno Google Chrome-ka iyo Google baan dhahayaa waan tijaabinaynaa okay Lencom waatan way soo baxday hadda fartu waa default ahaan waa u madow default ahaan size default yana way siiyeen markaan rabayna wax ka bedelo ama farta colorkeeda bedelo ama size-keeda bedelo ama aan nooca ay tahay qaabka font family-ga aan bedelo waxa soo dhan waa bedeli karaa waxaan ku noqonayaa halkan aan ku noqonayaa marka inline markaan isticmaalay habeenkii dhaweyto cashirkeena halkan oo kale ayaan ku qoray oo waxaan odhanay halkan inta ku rabeen style dhaan odhanay kabacdina style-ka dhexdiisa intaan tagnay oo aynu h1 odhanay kabacdina aynu furay bracket halka ayaynu ka siin oo maxaynu odhanay matalan waxaan odhanay colorka waxaad tirahdaa green cashirka habeenka hore qaadan Ctrl S baan idhi xaggan haddaan ku noqdo oo aan refresh dhaho farta green bay isu bedelaysaa cashirkaas waa cashirka habeenka hore CSS-ka marka hore habeenkii hore halkan kusoo qorra halkaas ayaan kusoo qorra tagna waynu sameyn kaa waxaa la dhahaa internal CSS baa la dhahaa oo markaas CSS-ka halkaas qohiirka dhexdiisa ku qoraysa laakiin inline-ka si loo qoraa inline-ka waxaa loo qoraa intaan iska dhigo horta waxaa loo qoraa halkan la tagaa tagga aad rabtiin inaad wax ka bedeshid ayaa waxaa la tagaa qaybtiisa open tag la dhaho ayaa dhex tegaysaa dibitana halkan waxaad ku qoraysaa style then waxaad dahaysaa equal then waxaad dahaysaa double quotation but for size halkaas maxaad gelinaysaa color kabacdi waxaad dahaysaa colon markaasaad sheegaysaa colorka matalan baan waxaan idhi red oo kale red iga dhig waxaan idhi Ctrl S markaa xaggan aan tegay markaa refresh baan dhahayaa colorka bisbis okay qaabkana maxaa la dhahaa qaabkana waxaa la dhahaa inline CSS line-ka ayay ku dhex qoran tahay taggaaga qaybta open tag la dhaho ayaa lagu sii daba xidhaa intay space la dhaho saas loogu qoraa wax walba meeshay taala xitaa bedeli karta size-keeda bedeli karta font size
font size baad dhigi kartaa marka waxaad rabtaa siin kartaa 40 pixel baad siinaysaa control s baad leedahay xagana tigisa marka waa wanaagti kan maxaa la dhahaa inline css waxaa jira hadaba qayb kale oo aad loogu isticmaal badan yahay oo ah qaybta ugu muhiimsan ama inta badan la isticmaalo ama tape-ka inta badan la isticmaalo nooca inta badan la isticmaalo nooca waxaa la yiraahdaa internal css sorry external css waa mid file-kan dibadda ayuu ka yahay marka hore mid halkan aan ku qoray midna halkan aan ku qoray laakiin kani waa file cusub oo dhinac kale yaal balkaasi loo sameeyo waxaan tegaynaa file waxaan dhahnaa new file waxaan dhahnaa marka save waxaan dhahnaa waxaan tegaynaa halkeenaas ku save karaynaa maxaan odhanaynaa my style .css maadaama uu external yahay oo uu ka baxsan yahay page-ki html-ka oo page cusub yahay okay inta badaas save badaas okay hadda maxaad sameynaysaa waxaad isku xidhaysaa page-kan css-ka iyo page-ka html-ka baad isku xidhaysaa sida css-ka halkan loogu qoro ama code-ka halkan loogu qoro uu u saameeyo html-kan ama skeleton-kan html-ka hadda haddeen browser-keena tagno waan refresh dhahno aan save garay marka ugu horeysa qaybtan browser-keena haddaan refresh dhaho okay fartii waa default-gii maadaama css-kii wixii oo dhan aynu ka remove garaynay haddaba waxaan rabnaa inaan isku xidhno page-kan css-ka iyo kan html-ka see isugu xidhi karnaa waxaad tegaya halkaa head-ka ah title-ka korkiisa hoosta labada waad tegi kartaa waxaad leedahay link sorry waxaad leedahay link deetan waxaad leedahay rel equal deetan waxaad leedahay style sheet kabacdi waxaad leedahay halkan tape deetan waxaad leedahay text slash css halkan marka waxaad gelinaysaa href markaad tiraad halkaas ayaa ugu muhiimsan quotation-ka href-ta ah waxaad gelinaysaa halkaa qoraal ku qoran page-kaagan magaciisa maxaa dhahaa kan waxaa dhahaa my style.css magaciisa halkaa gelinaysaa maxaa dhahay halkaa dhahaa my style markasta capital letters iska ilaali capitalka iyo small letterka kala xarfu u kala yaqaana meel capital ku waayo hadday small ka dhigtid ku macnaa ka aqbali maayo deetan waxaad raacinaysaa .css okay save badaas okay page-kan haddaba css-ka ah haddii aan intaan qaato selector-kan h1-ka aan page-kan css-ka tago oo aan halkan code ku qoro kan ayuu style-kii saameynaya balaynu hadda tagno waxaan qaadanayaa h1-ka copy baan leeyahay xaggan aan tegayaa kabacdi maxaan leeyahay halkaasaan paste ku leeyahay kabacdi waxaan leeyahay bracket-kaasaan furaya kabacdi maxaan leeyahay matalan fonty fartaan ba bedelaya maxaan bixinayaa tan waxaan dhahayaa sans serif ama stats barkaasaan ka dhigaya control s baan leeyahay browser-kan tegaya kabacdi refresh baan leeyahay smart fartii way yaryaraatay aad bay u yaryaraatay aan waaweynayo font size baan ku daro waxaan ku waxaa dhigtaa 60 pixel control s baan leeyahay soo wajeedi fartii nooceediina waan bedelay size-keediina waan bedelay waxaan kaloo bedeli karaa color-keeda color baan leeyahay orange ayaan bari control s baan idhi browser-kan tegay refresh baan okay wixii uu bedelay hadda maxay sameyn css-kii page gaareen ka dhignay html-kiina page gaareen ka dhignay dabeetana waan isku xidhnay kabacdi code-ka halkan ku qoraa wuxuu saameynayaa qoraalkaygan anigoo adeegsanaya selector-kan anoo adeegsanaya sidaas baad markaa u sameyn kartaa external css iyo internal css labadana saasaad u sameyn kartaa caawa cashirkan intaan ku egyahay aad iyo aad baad umahadsantihiin fadlan haddaan kusoo gudbiyay wax inaba ku anfacay ama wax yarna aad ka faa'iiday adoo mahadsan videoga like saar channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu